Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada kanaalka daruuraha. Mararka qaar aad bay u xanuun badan tahay in cudur halis ah uu kugu helo qurbaha adigoo keliga ah oo aan haysan qoys iyo ehel ku maciina. Waana dhibaatada qabsatay nin bukaan Aljeeriyaan ah oo muddo cudurka kansarka ugu xanuunsanayay gudaha Ingiriiska. Inta aan gudagelin qisada muwaadinkan Aljeeriyaanka ah ee halka codsi dalbaday inta uusan geeriyoon, fadlan like saar boggeena Facebook, share garay muuqaalkan oo saaxiibada u sii gudbi, sidoo kale subscribe saar boggeena youtube.com/daruuraha. Ninkan bukaanka ah ayaa lagu magacaabaa Maxamed Zayaad, wuxuuna qabaa cudurka kansarka. Hase yeeshee waayadii dambe ayaa xaaladiisa caafimaad ay sii xumaatay, waxaana isagoo ku jira qolkiisii isbitaalka uu qayladhaan u dirsaday dowladdiisa Aljeeriya oo uu ka codsaday inay riyadiisa u rumayso, taasoo ah in inta uusan malakulmoodku u imaan uu jeclaan lahaa in lagu celiyo dalkiisii si uu ula kulmo hooyadiis, garabkiisana ay u taagnaato ilaa daqiiqada ugu dambeysa ee noloshiisa haddii ay ajashiisu soo dhammaato. Durbadiiba muuqaalkiisii uu gurmadka ku dalbanayay ayaa waxa uu ku faafay internetka ama baraha bulshada ilaa muuqaalkaasi uu gaaray Aljeeriya, madaxda dowladda dalkaasina ay daawadeen. Xilliga lagu jiro oo ah waqti aad u cakiran oo isu socodka dunida uu hakad ku jiro sababo la xiriira cudurka koronaha awgeed, ayaa waxaa jaaliyadda Aljeeriya ee Ingiriisku ay bilaabeen olole degdeg ah oo ay dhaqaale ugu ururinayaan Maxamed Zayaad. Nasiib wanaag, waxa ay muddo 4 saacadood ah ku soo ururiyeen lacag gaaraysa ku dhowaad $30,000 Mareykanka ah, waxaana loo kireeyay diyaarad gaar ah oo ka dejisay waddankiisii hooyo. Xukuumadda Aljeeriya iyada qudheeda dadaalka kama marnayn, waxaana ay diyaaraddii soo qaaday bukaan Maxamed Zayaad ay u oggolaadeen inay ka soo degi karto dalka, waxaana sidaasi ku rumowday riyadii Maxamed Zayaad oo haatan la jooga hooyadiis, xaaskiisii iyo saaxiibadiis. Nuruddin Balmadaax oo ah ku-xigeenka ururka jaaliyadda Aljeeriya ee qurbaha ku nool oo la hadlayay telefishinka Aljeeriya ayaa waxa uu sheegay inuu Ilaahay u fududeeyay inay walaalkoodaas dhibban u gurmadaan, gurigii hooyadiisna ku soo celiyaan. Shacabka Aljeeriya iyo kuwa Carabeed ee isticmaala social mediaha ayaa aad ugu farxay sida ay reer Aljeeriya ugu midoobeen in bukaankan ay isku beledka yihiin ay hamigiisii u hirgeliyaan, dibna ugu celiyaan gurigii hooyadiis oo ah halkii uu ku taamayay. Xaajiyad Maryama oo ah Maxamed Zayaad hooyadiis oo aad u faraxsan islamarkaana dhinac fadhisa sariirta wiilkeeda kuna dheggan gacantiisa ayaa waxay aad ugu mahadcelisay dhammaan intii ka qayb qaadatay in dib loogu soo celiyo inankeeda haddii ay ahaan lahaayeen shacab iyo dowlad labadaba, iyadoo sheegtay in maanta farxaddeeda aan la soo koobi karin. Maxamed Zayaad oo haysta jinsiyadda Ingiriiska ayaa mar ahaa wiil firfircoon oo qoyskiisu ay ku faanaan, kaasoo ka shaqayn jiray garoonka diyaaradaha ugu weyn Ingiriiska ee Heathrow Airport. Hase yeeshee wuxuu Ilaahay u qadaray inuu haleelo cudurka kansarka, isagoo wixii waqtigaa ka dambeeyeyna noqday sariiryaal hadalku ku adag yahay. Haddii aan si wadajir ah looga qayb qaadan lahayn safarka Maxamed Zayaad, maanta suurtagal ma noqoteen inuu mar kale dib u arko hooyadiis iyo qaraabadiisa. Waxaana isagoo faraxsan uu hadal naxuus ah ku yidhi, Ilaah baa mahad leh, maanta riyadeydii way ii rumowday, waxaan la joogaa hooyaday, intii ii caawisayna khayr Allah siiyo. Intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa qisada Maxamed Zayaad oo uu cudurka kansarku kula dhacay Ingiriiska, hase yeeshee inta aysan geeridu u imaan codsaday in la duuliyo oo loo geeyo hooyadiis si uu ugu ildoogsado, sariirtana ugu sugto qadarta Alle. Ilaahay caafimaad taam aha siiyo. الجالية في بريطانيا والثانية الحكومة في أسست فيها حققت أمنيتي الحمد لله. أنا إمام كوراج برك باسكو حنا شفناك الله يبارك ما شاء الله صبرتي ومنا دوك على بالي قدرت كي جيت شفت العائله يعني الجاليه الجزائريه وقفت السلطات وقفت واش تقدري تقولي لنا برك يعني وسمحي لنا احنا ما نقول لهم يعني درتوا مجهود اكثر من ضرورها.